Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusoo dhawaada cashar cusub oo ku saabsanaa casharkii hore inoo socday ee ahaa HTML-ka. Maanta casharkeeni waxaan ku qaadan doonaa qaabka loo soo dejiyo programka aan ku shaqeyn doono, kaasoo ah magaciisa waxaa la dhahaa marka hore Google Tageysa, browserka soo furaysa marka Google Tageysa, kabacdi waxaa ku qoraysaa node plus kabacdi searching baa leedahay. marka halkaan timaadid waxaa ku dhufanaysaa meesha ku qoran tahay notepad plus click dheh, page-kan kuu soo saarayaan. haddii computerka uu yahay 32-bit halkaan aad ka download garanaysaa, laakiin hadduu yahay 64 halkaan aad ka download garanaysaa meesha ku qoran tahay note plus click baa ku leedahay. waxaad tegaynaa meeshu kugu save gareynayo, waxaad igu save gareynaysaa tusaale ahaan meeshaan ay ku qoran tahay music. save dheh, wax yar noo soconaya ilaa adigu 3 second meelahaas, waa iska sugaynaa. waxay ku xiran tahay hadba khadka ama internetkaagu wuxuu yahay. markuu soo load gareysmo waa iska soo noqon doona insha Allah. wax yaraa noogu dhiman waa uu noo dhamaystirmay. waxaan ku leenahay meeshaan, waxaan ku leenahay click, halkaan noo soconaya okay dheh. awal wuu ii save gareysnaa laakiin dib baa u celinaya insha Allah taala. okay dheh, saan kugu soo baxaya next, agree, next, install. hadda wuu noo dhameeyey installation-kii. marka finish baan leenahay. markaan barnaamijkaas marka hore saan noogu soo kacaya, waxaan samaysanaa folder cusub oo la dhaho HTML. new baan leenahay, new folder baan leenahay. waxaan ku qoraynaa HTML, click baan ku leenahay. notepad baan tegaynaa, halkaasaan ku dhufanaa, waxaan leenahay save as. desktop ka tegaynaa, waxaan tegaynaa meesha ay noogu qorneyd HTML, ku dhufo. halkaan waxaan leedahay waxaan noogu qoraa structure. waxaa raacinaysaa markaa extension-ka raacinaysaa HTML baa leedahay, save dheh. marka barnaamijka saan noogu soo kacayaa. marka waxaan baran doonaa structure-ka koobaad ee HTML-ka. waxaa leenahay calaamadda lesden baa leenahay. lesden markaa dhahno calaamadaas la dhaho calaamadaas waxaa la ka baaxa leenahay doc type oo loo soo gaabiyo document type. waxaa leedahay HTML. marka taggeena furnaa, marka waxaan soo xiranaynaa baalkeenii creative aan soo xiranaynaa taggeena furnaa. waxaan leenahay enter. waxaan soo furanaa kale tag la dhaho HTML baa leenahay. haddana waan soo xirinaynaa kabacdi. marka tag open tag way hadda waa furan yahay. marka waxaan rabnaa inaan tagga soo xirno, sidoo waxaa leenahay calaamadda lesden baa leenahay, forward slash baa leenahay, waxaa leenahay HTML baa leenahay. waa soo xiraysaa soo jeedid. halkaa labada dhexdooda ku dhufanaysaa, waxaa leedahay enter. hadda waxaan soo furanaynaa tag la dhaho head, kabacdi tagga soo xirana. waxaa leenahay open tag weeye. marka taggan kan furan baan rabnaa soo xirno. kan HTML kan waa open tag, kana maxaa la dhahaa closing tag soo xirid baan rabaa. waxaa leenahay lesden forward slash head calaamadii kardidan good. halka marka headka dhexdiisa waxaan ku qoraynaa
tag la dhaho title tag noo furna soo xir haddana tag cusub forward slash dheh title-kan wuxuu naga saacidayaa meesha kore oo marka la furo marka browserka lasoo furo meesha kore wuxuu kusoo hata tusaale ahaan casharkeena ciwaankiisa waxaa ka dhignaa structure of html marka intaa soo qorno waxaan leenahay save halkaas ama waxaad leedahay control s baa leedahay barnaamijka runtaas meesha qoranta taysan ma Chrome baa kusoo kacinaysa ma Safari kusoo kacinaysa ma Firefox baa kusoo kacinaysa waxaan leenahay ama Internet Explorer baa kusoo kacinaysa aniga waxaan leenahay waxaa noo soo kacinaysa Chrome-ka soo jeedid xagga waxaa ku qoran structure of html laakiin meesha waan banaan weli wax kuma qorin insha Allah taala gaari doona haddana waxaan soo furinaynaa headkan baan wadignaa hidka iyo meesha baalka ka xirmo waxaan ku qorinaa tag la dhaho body oo ah meesha kaliya ee wax lagu qoriyay waxaan leenahay soo xir waxaan leenahay baalkii forward slash body soo xir akas structure-kaas koobaad maanta casharkeenu waxaan ku baranay structure-kan sababta structure-kan hadaad muxuu ahaa structure-kan aadan baran wax ku suurtagelaya ma jiro sababta aan intaan weeye meesha wax laga bilaabo kabacdi body-gaas waxaa ku qoraysaa tusaale ahaan body-ga waxaan ku qoraynaa paragraph amal waxaan ku qoraynaa paragraph maanta waxaan baranaynaa qaabka loo dhiso luqadda html-ka waxaan leenahay soo xir /paragraph kabacdi soo xir control s dheh Chrome-keenu ku laabano refresh dheh waxay noo soo baxay maanta waxaan baranaynaa qaabka loo dhiso html insha Allah taala maanta intaas casharka inoo joogo la soco casharka xiga